Dubay iyo Muqdisho waxa iskaga gooshaya markab laga leeyahay Nigeria waa markab sidaraar gawaariya waxa Canada ka yimid oo dalka Shiinaha ku jeeda markab uu Turkigu leeyahay waxa saaran macdan iyo 20 qof oo shaqaale ah markab ka shiraaday magaalada Istanbul ayaa isaguna ku sii jeeda dalka Hindiya waa markab sida 4500 oo tan oo alaab kiimika ah sababta isu keentay maraakiibta kor ku xusan iyo kuwa kaleba waxa la ogaan doonaa muddo kadib mid ka mid ah dekedaha dalka Ukraine kuna talabada madow waxa ka soo baxay markabka la yiraahdo Faina tirada shaqalihiisa waxa weeye 21 badmaax markabkan iyo waliba kuwii hore loo xusay oo dhan waxay mari doonaan gacanka cadmeed oo loo haysto marin biyoodka ugu halista badan biyaha adduunka degaha caalamka waxa ka batay wararka sheegaya in biyaha u dhow Soomaaliya lagu afduubay markab ganacsiga sanadkii 2008 burcadbadeedu waxa ay weerareen in ka badan 130 markab iyaga uu afduubay 50 ka mid ahaa balmale madax furashadu waxay gaartay 150 malyan oo dollar waqtigan la joogo gacanka cadmeed waxa ka howlgasha in ku dhow 160 kooxood oo burcada qarniga la joogo ee 20 maxaa dib u soo celiyay burcadbadeeda jawaabtu waa sahlan tahay maraakiibta waxa ka buuxa unto dar daawooyin iyo qalabyo fara badan wax kasta oo qof Soomaaliyeed uu u baahan yahay wayna agmarayaan sidaasi awgeed in la wadaago khasab weeye sidarunta burcadbadeednimadu weligeed ayay jirtay burcadbadeednimadu waa dembi aadiya maxaa sababay in ay sanooyinkii dambeeyay gaartay heerkaas soo jiitay oo weliba welwelgeliyay aragtida dadiyowga adduunka meelo badan ayuu ka daaran yahay dab aanan saas weynayn balse mid ka mid ah meelahaasi ayuu si lama filaan uga kacay olol daran oo wax kastaba gubaya meeshaasi waa Soomaaliya haddii aanay fidi lahayn warar ku saabsan burcadbadeeda Soomaaliya marna lama xasuusan lahayn dalkaasi wuu jiraa oo wuxuu ku yaallaa Afrikada Bari muddo dheer bay ka socdeen dagaallo sokeeye wala islaynaya wala gaajoonaya wala dhimanaya dembiyada laga galo maraakiibta agmara Soomaaliya maalinba maalinta ka dambaysa waa ay si fool xumaanayaan taasina waxay keentay in dawladaha adduunka ugu waaweyni ay ku tashadeen in burcadbadeeda looga hortago xog ballaaran oo militariya muddo 20 sano Soomaaliya ma aanay booqan ergooyin ka socda dalalka ilbaaxnimada ka waaray dalkaasi wuxuu noqday mid la wadayeeloobay loona haystay goob ku taalla khariidada juqrafiyada oo keliya balse annaga oo ku soconay 4 dawladood oo kala gaara ayaan ugu dambayn gaarnay Soomaaliya 4 dawladood ee aanu raacnay ma ahayn kuwa ay leeyihiin shirkado caan ah oo waaweyni haddii ay jiraan dad caddaan oo laga helo dawladahaasi oo u duula Soomaaliya dadkaasi waa duuliyayaasha oo keliya dawladahaas oo kuwa gaboobay ama la dhaafay waqtigii loogu talagalay waxa kaxaya duuliyayaal Ruushka ama kuwa ka socda Ukraine dawladahan waxa loo qabaa baahi weyn oo waxay daboolaan kaalin lagama marmaana inta badan waxay keenaan maandooriya la yiraahdo Chad ama khat waa calimo qoyan bada'ooyinka suuqa yaalana waxa u badan Chadkaas iyo rasaasta qoryaha madaxweynaha Soomaaliya waxa laga helay warqad uu ku ballan